dalka jamhuuriyadda Soomaaliya oo si habsami uga socda ololaha doorashooyinka madaxtooyada ayaa saaka oo la xisbi xaqiiqda talada dalka hayay kulmiye ayaa jawiga saaka degmada Garadeg waxa ahaa mid ka bedelan kuwii hore iyadoo uu ruulo lixaad habeenimada xalay ay ka daayeen degmada Garadeg isla markaana saaka ay ku waabarisatay jawi degan iyadoo kumanaan ka mid ah shacabka taageerayaasha u ah xisbi xaqiiqda talada dalka hayay kulmiye sidii caadada iyo dhaqanka u ahayd ay cududooda taageero sharciyada waaweyn ee degmada Garadeg ay isku soo bax ka sameeyeen farxadda weyn ee Gutelman Galol iyadoo saaka ay xisbi xaqiiqda talada dalka hayay kulmiye uu suurta gali weeyday inuu munaasabadiisa ku qabsado gobka ay ku cankada degmada Garadeg maadaama habeenimada xalay ay roob ka de'een uu ahaa mid dhiidhiya ama biyo fadhiyaan iyadoo saaka dadweynaha ku dhaqan degmada Garadeg taageersan xisbi xaqiiqda talada dalka hayay kulmiye ay munaasabadii kala soo qayb galeen mas'uuliyiin sarsare oo ka mid yahay wasiirada wasaaradda duulista hawada Axmed Cali Baynax barasaabka gobolka Sanaag Axmed Cabdi Jaac Falay gudoomiyaha guddiga kaambeega ee gobolka Sanaag Xildhibaan Ruush Caraale Maxamuud Saalax Cabdi oo ka mid ah guddiga kaambeega ee gobolka Sanaag isla markaana gudoomiyaha guddiga kaambeega ee degmada Garadeg oqaal iyo waayeel tiro badan iyadoo ay saaka sidoo kale degmada Garadeg lagu caleema saarayay suldaan cusub isla markaana ay xisbiga xaqiiqda talada dalka ay kulmiye suurta gashay inay munaasabadooda kala soo qayb galaan cuqaal iyo salaadiin magac iyo miisaan culus ku leh dalka jamhuuriyadda Soomaaliya ugu horeyntii waxa sida miisaan kale iyo mugale ay ugu muujinayaan taageerada waxweeye xisbiga kulmiye waxa leena aad iyo aad baan idinku mahadcelinaynaa waxa inoo haray oo kaliya 13 November oo codka lagu rido sidoo kale waxaan mar labaad aad ugu mahadcelinaynaa dhammaan waftiga uu barasaabku iyo wasiirku ay hogaaminayaan ee nala joogta waxweeye aynu maanta nasiibka u helay inay naga qayb qaataan isu soo baxa kaambeega ina siiyay oo nimcooyinkii hore oo ina siiyay nimcadii roobkana maanta inoogu daray ilaahay baan u mahadnaqaynaa marka labaad waxaan u mahadnaqaynaa taageerayaasha xisbiga kulmiye ee halkan isugu yimi soo dhaweynaya waftidan miisaanka culus leh kasii wacyadala badan tahay oo kasii waa caddayd oo qoraxdii ka caddayd reer Garadeg iyo mowqifkoodu harana waa u caddaan jiray iminkana waa cad yahay xalay ku hadh waa laga yaabaa dee nimanka baratamaya itaalkoodu meel kastaba ha dhigee ilaa inta ay naftu ka baxaysa 13 bisha la gaadhayo way idinku soo noqnoqon doonaan oo taasi waa lama huraan waxay Soomaalidu tiraahdaa bil saddex gurigaagana way kaa kaxaysaa guri kalena kuma geyso aan gaadhka ahayn xisbiga ugu weyn saddex jirka yahay ee socod baradka ahi iyagoo xisbiye qaran oo aynu soo barbaarinayno waxa maanta idin muuqata durba labadii saddexdii cashiir hore intaan la gaadhin inay xiiqeen oo sanaan kadib inta liirmaha ciyaarta ku keenay ciyaarta waxay keenay anoo qol madooba qaan ku hayaa habla qosolkoodii baxay hadda saaka waxaa soo kaxayay markaanu faasabay dhowr jeer daawano ka yaabnay mihigaanka Garadeg ka socda ayay maanta waxay noqotay inaan u nimaado reer Garadeg uga mahadnaqno waxaanu isla garanaynaa taariikhdii horeerka Garadeg ka jirtay maanta dib ugu noqon mayno laakiin xagga xisbiga kulmiye guriga shaqaalaha lagu aasaasay waa halku ku dhashay ay tahay aad iyo aad u qiimo badan waxaan goostay in maanta xafladda degmada Garadeg kala qayb galo iyadoo gobolku ballaaran yahay caasimadii gobolka aan ka imi waxaan arkay sida fiican ee xamaasadda iyo wadaniyadda iyo xisbi jacaylka kulmiye uu ku dheehan yahay baan u go'aansaday inaan kala qayb galo ayuu gudoomiyaha kaambeynkuba waa laga soo sheekeeyey degmada Garadeg inay degmo tahay boqolkiiba 99 waa dee boqolkiiba boqol waa iska yar yihiin inay tahay boqolkiiba 99 kulmiye ilaahay baa mahad leh waxa muuqata saadaashii guusha waxaynu soo maray marxalado intii ololuhu bilaabmay saadaasha fiican ee quruxda badan ee inoo muuqata waxa kow ka ahaa doodii la isku soo horfadhiisiyey saddexda murashax madaxweyne iyo ku-xigeenadooda ee dooda sida ay qaranka u hogaaminayaan iyo waxyaabaha qaban doonaan la isku soo horfadhiisiyey waxa lagu kala badiyey
tiro aan caadi ahayn baa lagu kala badiyey oo way muuqatay waxay ahayd saadaashii koowaad saadaashii labaad madar sayre warbaahinta qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland gardag